dhammaan aqyaarta Soomaaliyeed meel kastoo joogtiin soo dhawaada channelka daawanaysa waa Nuruddin official. Please haddaan ugu cusubtaa subscribe oo noo saar. fadlan barnaamijkan sii share gareey. waa barnaamij lagu caawiyo bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogaan. waa hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo ka xanuunsan yahay cunug yar oo dhashay. waxaa muddo 3 sano ka xanuunsan yahay cunugaas yar hooyada Soomaaliyeed oo aabihii dhalin ka xanuunsanay 10 sano. cunugaas yar waxaa la sheegay in wadanka waxba looga qaban karin oo علشان دبدو باهي بليز هذا ووديت أو علشان داوني في برنامج كان نمبر كده علشان دايركتي وحكوا سوق المشاشة مركز كقرو إن شاء الله وحكوا عاوي كرتركوا عاوي أنا كنا وحكوا عاوي إن شاء الله ونبل شو صوم على تكون قد من غف على الغفت في سنة برنامج كان وين الشير كريسة سيدي وقارن ومد صوم على الملك استيجو كان بلنا لا دعوة كليب كاير أو عادي ومروجة بدن أو أنا علشان مروجة يقول باري marka nala daawada barnaamijkan kilibkan yar insha Allah aan u baan dareemaa oo maxay ilaahay rasuulkiisa uma qalba isku qabta salaad ilaahay mar Allah markaan tukan hayo waxaan ilaahay ka baryaa ninkan curyaanka kan hadda waa awal baaban haystay oo iskaga samarsanahay kan yarka ay hoos yaaleen aniga saa u qaadi saa u dhigi keligay u qabeen waxaan ilaahay ka baryaa labada daarood ilaahay mid inuu ii mariyo markasta tukada ilaahay waxaan dhahaa caafimaadna adaa hayo geerina adaa hayo waan ku daalnay ninkan hadda hadlaayay waa aabihii maxay ahayd waxa aan jiifo aan la murugoonaya ee daran waa xanuunka wiilka waa curyaan hortiibaan asaga maxay ahayd uu ii yaalay oo ka qaadahayay maxay ahayd nijaasada asaga ba hadda baambas ka qabo oo qaada oo dhiga oo keligay maxay ahayd aan ku ahay dadka islaamka ee dal iyo dibadba joogo ee culumada caamo wale maxaan ka codsanayaa ninka waan ku rafaaday habeenkii ma saaxdi habeen walba meesha u dhigto waa inaad ka qaado oo dana dhinaca kale u gadiso sidan aad aragtaan baan ku qoodiyaa dhabteeda ku qoodiyaa maxay ahayd salkan aan hadda u fadhiyo waan fadhin laa intan hadda aan fadhiyo maxay ahayd dadka islaamka waxaan ka codsanayaa laba curya baan isku hayaa سحر أوضان قاضا محي إلهي باي قوة رسول باي قوة أم بامكيسة تضرب بري بس ومحي أبين تضربك بقار تضرب مال المحي جنها مال والبنباب بيسكيسة والعق وانقضى من هيلي كري محي إلهي إنك يقان ومدنا ومحمد وحان ربع إنك اللي قسم ريا إسبطال قدلك دبدي سالي يجي انت سان ولا لو عصن هيا قد حسنو انت ربعت العلم هذه وسان وهو سيالو قفك عريان كهيا ولا لو دلك استوى لو عن كرتا والله بدن مد كان أنا أوقبيو كان جاسران كقاضي كان جاسران كقاضي إلهي دوش أنت وحي هاي تقفل آدم ومشي كري وينها انت سان عصي قارسي سميه ددك سيدا أيضا لجوغا ninka yarka walaalkooda ee 10 jirka in ay caawiyaan oo isbitaalkan uu niyo dheernahay oo iga soo samriyaan baan codsanayaa wiilkan asagoo 7 jir ah yeesha nabarka kaga dhacay saacadan hadda waa 10 jir 3 sano buu sidan yahay isbitaal qaadirad ka soo bixinaysa ishan maalinta ka soo bixinayaan waxay dhaheen ninkan isha nabarkan meesha maskaxdu tagay maxay ahayd ishan in laga soo wada saaro weeyo haddaan laga soo wada saarin isha kaleeta yaa maxay ahayd halis noqonaysa kaas maamada Soomaaliyeed aad iyo aad u dhibaataysantaa marka aad wax weeli kartid barnaamijkan daawanaysid please caaw maamada Soomaaliyeed barnaamijkan sii share gareey hadana quraanka markii u dambeysay ninka wuxuu noqday inuu lugaha soo laabto afka dhub dhaho paralyze uu noqdo gacan aan qaadin lug aan qaadanin aan hadlaynin markaan wada saaxano habeenkii intaan fadhiistaan dhinaca kale u gadin haddana dhinaca kale u gadin waa ruux meesha yaalla in laga qaado ma ogaan ka qaadmaynin walaalow aad baan u xanuunsadaa keligay markaan hayo wixii daadiisa dariiqa marayo la socon jiray markaan arkay limbaas ku sii daaya intaan Allah caafiyo intaan Allah caafiyaan laahay awlaad islaamka Allah uu caafiyo aniga ilmihii la socon jiray hadda markaan arka dhacday calooshii dhihi kolba qalbigayga ma hadli ibraahim mu istaagi doona masana abada noqon ilaa abadahayga dhin baan dhahaa ilaa abadahayga dhigin baan dhahaa mar walba ilaa intaan baan ka baryaa xasuusan kari sidoo ahaa ilmaha ugu farafircoon buu ahaa ilmaha ugu farafircoon buu ahaa fariida oo leh maxay ahayd wax la qoori karaa ana de qiyaam wixii baa dhacay كل قدر كلاي بعد عي الحمد لله شكري وحول بعد الله كاني. مركا وحيلا بحنا يهلوك عفو الرادو إلهي درتي وحلوك بحير. وكذا مع Soomaaliyeed xaqiiqda ka hadashay baliis hadaa caawi karto caawi barnaamijkan si share garay sida ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan u daawadaan
channelka naga daawanaysa waa nuruddin official please haddaan ugu cusubtaa subscribe karo saar share iyo like tan waa noo muhiimkum insha allah waa mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu